dugsiyada al irshaad schools qiimaha iskuulada miqyaaska guud baa lagu wada qadariyaa waana qaybo dhowr quman oo kalaasada qaybiba ay meel tahay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي الشرفة يقيمها له ومعلم أحمد عبد الرحمن محمود أحمد هلو ويدي دونا مادة الصومالية فصلك لحد 10 كيلو مانتا وحاو قبل مياه 10 كلابات عطب كالشناد 10 كيس لابات ومانصدي دقالون الكومردشو مانصدي دقالون الكومردشو مانصدن waxa uriyay Abaan Axmed Awgeedi Maxamuud ujeedada uu tiriyay maansadani waxay tahay qodobadan soo socda maansadan ujeedadeedu waxay ahayd waxay ka hadlaysaa qiimaha nabadgelyadu leedahay waxa kale oo ay ka hadlaysaa dhibaatada uu leeyahay dagaalku maansadani waxay maansadu ummadda ku baraarujinaysaa inay dhowraan xasiloonida deganaanshaha iyo in laga digtoonaado oo la iska ilaaliyo wax kasta oo bulshada u horseedi kara dagaal colaad calool xumo dagaal sokeeye iyo colaad lagu hoobto had iyo jeer dagaalada iyo colaadaha waxa sababa aadamaha waxaanay keenaan dhimasho badan waxay keenaan waxbarasho la'aan waxay keenaan caafimaad la'aan waxay keenaan inay dadku kala tagaan oo dadku kala yaacaan aabba iyo hooyo ayaa kala taga caruurtii iyo aabayaashood iyo hooyooyinkood ayaa kala fogaada dad badan baa ku dhinta caruur yar oo waxba samaynin oo masaakiina ayaa ku dhinta dad taag daran oo jilicsan ayaa ku dhinta awaanku isagoo oo inoo tilmaamaya qiimaha ay nabadgelyadu leedahay wuxuu yiri nabad baa lagu dhaqdaa nabad baa lagu dhistaa nabad baa lagu dhargaa maxay dhiiladu tartaa dagaal wiil kuma dhashay oo wiil baa ku dhiman ma ereyadaas waxay inoo tilmaamayaan sida ay nabadgelyadu u tahay lama huraanka nolosha aadamaha waxa uu tilmaamayaa in nabad lagu dhaqdo xoolaha oo lagu taransado waxa uu inoo tilmaamayaa awaanku in nabadda lagu dhisto oo lagu guursado waxa uu sheegay in nabadgelyada lagu dhargo waxa ay sheegaysaa inay maxay dhiladu tartaa maxay tartaa colaadu maxay tartaa colaadu maxay tartaa dagaal wiil kuma dhashay oo wiil baa ku dhiman dagaalka qof baa ku dhinta ee qof kuma dhasho dagaalka inan kuma dhashay inan baa ku dhinta geesi la jeclaa baa ku dhinta sheekh la jeclaa baa ku dhinta caalim la jeclaa baa ku dhinta mid aan waxba samaynin baa ku dhinta mid sheekha baa ku dhinta oo dadku ka maarmayn oo xaqa iyo cadaaladda u halgama oo ku dhaarta oo dadka gaarsiiya quraanka iyo xadiista oo masaajidada jooga ayaa ku dhinta dhibaatada qoys quriyo dhulun kuma aadanee madaaday ruux kastaba dhibtiisay saaran tahay wuxuu awaanku inoo sheegayaa inay dhibaatadu qof kasta saamayso qof guri shakhsi waayeel caruur intaba inay gaarayso ee aanay ku koobnayn ninka fidmada kiciyo inaanay ku koobnayn inay ka tagayso oo dadka wada saameynayso ayuu awaanku inoo tilmaamaya dhibaatadu qoys quriyo qoys waa jees waa xaafad dhulun kuma aadanee dhulun kama dhacdo dhibaata hadday dhacdo dhulun kuma koobna waad ogtahay maanta cudurka dhacay ee Chinese ka dhacay oo inaga Hargeysa kaga dhex baqanayna marka dhibaatadu hadday dhacdo dadka dhan way saamaysaa hadday barwaaqada iyo nabadu dhacdana ummadda dhan bay saamaysaa oo ay soo gaadhaa wanaageedu wixii wanaagsan ee meel ka dhaca uu faafaa wixii xumaan ee meel ka dhacana uu faafaa dhibaatadu qoys quriyo dhulun kuma aadanee madaaday ruux kastaba dhabtiisay saaran tahay haddaynan dhoohanayn dharaartii waa baryaba maxaa dhiigeena qubay warmaha isu dhaafsana maxaynu maalin kasta haddaynu caqli leenahay isu dilaabino warmaha isu dhaafsana waranka kaasina uu kiisa soo tuuraya kana soo tuuraya marka laba geesi oo laga maarmaynayo dhimanaya guri dharaartii waa baryaba waa maalintii soo baxdaba dharaartii waa baryaba dhiig baa qulqula
ehey waran baa dhul gala dhalaan baa lagu tuntaa dharaartii waa baryaba ahey booli dhaadhi iyo gaadaa lagu dhabar jabaa maalin wal oo cid soo baxdaba gees iyo niman laga maarmay ba ku dhinta oo colaad timaado maxaynu isku dilaynaa buu abwaanku isagoo sheegaya qiimaha iyo sharafta iyo wanaaga ay leedahay nabadgelyadu isagoo ummadda u qeexaya ayuu tilmaamayaa abwaanku inay lagama maarmaan tahay ay lagama maarmaan u tahay guud ahaan noolaha oo dhan nabaddu gaar ahaan aadamaha oo ay si weyn u taabato wuxuu yidhi dharaartii waa baryaba ahey booli dhaadhi iyo gaadaa lagu dhabar jabaa dharaartii waa baryaba ahey kadin dayr dhalaa ahey beel laga dhacaa maalin walba kadin geela 100 geela oo reer haysto ayaa laga qaataa oo colaad iyo maxaan ku dhahday dhiiladu ay keentaa in ay ka tagto nabad baa lagu dhaqdaa nabad baa lagu dhistaa nabad baa lagu dhaqdaa xoolaha nabad baa lagu dhaqdaa dadka nabad baa lagu dhaqdaa wax kasta nabad baa lagu dhistaa nabad baa lagu guursadaa nabad baa lagu dhargaa waxay dhiiladu tartaa colaadu waxay tartaa wiil dagaal wiil kuma dhashay oo wiil baa ku dhiman dagaalka wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho weelugnahay hadduu dagaal dhaco de qof ma soo dhalanaya ee qof baa soo dhimanaya oo laga imanaya barta dagaalku ka dhacay qof baa barta dagaalku ka dhacay laga imanaya ee qof barta dagaalku ka dhacay kuma dhalanayo dhibaatadu qoys quriyo dhulun kuma aadanay madaaday ruux kastaba dhibtiisay saaran tahay buri dhibaatadu kuma koobna qof kasta iyo ruux kasta oo aan waxba sameeynin laakiin si dhibaatadu waxay taabanaysaa qof kasta kii dagaalka sriday iyo kii aan waxba sameeynin gurigiisa iska joogay isabiga ahaba way saameynaysaa haddaynan dhoohanayn dharaartii waa baryaba maxaa dhiigeena qubay war maxay isu dhaafsanaa wuxuu tilmaamayaa abwaanku inay caqli darro tahay waxa la isku dilayaa oo ay xumaan tahay dagaalka in la ridaa inay xumaan tahay oo ay caqli daran tahay ayuu tilmaamayaa dharaartii waa baryaba ahey dhiig baa qulqula ehey waran baa dhul gala dhalaan baa lagu turuntaa dharaartii waa baryaba ahey booli dhaadhi iyo gaadaa lagu dhabar jabaa dharaartii waa baryaba ahey kadin dayr dhalaa dharaartii waa baryaba ahey kadin dayr dhalaa ahey beel laga dhaca abwaanku wuxuu tilmaamayaa inay tahay sharci darro in had iyo jeer dagaal la qaado oo reerad xoolo haystay ay caydhoobayaan xoolahooda ay ku waayaan buu inoo tilmaamayaa dagaalku waa marka keliya ee naftaada iyo waddankaaga lasoo weeraro waa dagaalamaysa kaasi waa waajib laakiin kaynu ka hadlaynaa waxa weeye dagaalku ka dadku ay isku dilayaan si caqli darro ah wadad wada dhashay ah oo beelo walaal ah wada yaalla ay isku dilaan baa xun casharkeenu maanta bartaas inuu joogayaa waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaad ka soo shaqaysaan leeliska bogga casharkan waa inooyo kulin dambe oo xiisan haddii ilaahay idhaahdo dugsiyada al irshaad schools qiimaha iskuullada miqyaaska guud baa lagu wada qadariyaa waana qaybo dhowr oo quman oo kalaasada qaybiba ay meel tahay